بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كلنتي هبوندا wada leedlahantiin ba waxaad ku soo dhawaataan taxanaha niirbadii eelka reebtay taxanahan ama sheekadani waxa qoray qora Cabdillaahi Saala Ahmed qaybteena waxay noogu bilaabmaysaa sidan Aadam iyo Maxamed markii ay dhameysteen ayaa ana la yeeray hortooda ayaan soo istaagay indhaha ayaan mariyay intaanan hadal anoo dhowraya daqiiqadaha kooban ee leysiyayna waxaan ku bilaabay sidan waan idin salaamayaa kolka hore waad ogtihiin waxaynu dhibanayaal u nahay xanuun saaxiibtinimo leh dadku si khalad fahmeen ha kala duwanaato siyaalaha lagu kala qaado kumanaanka caruur ah ee waalidiintoodii ku dhaleen ee la dayacay kadib dhimashadii waalidiintood darbiyadana tiifa maxay geysteen boqolka kale ee sidayda irbadaha iyo agabka kale ka qaadayna maxay galabsadeen si kastaba aynu ku qaadno ee waxaan u baahannahay in aan daryeel dheeraad ah siino nafaheena la takooray sida wuxuushnimada lehna loola dhaqmay sidaas si la mid ah kuwa cawaanka ah ee ayna takoorayna waa inaan badbaadinaa kana badbaadinaa kumanaanka xanuunka qaba ee u haliilaya in ay qaadsiiyaan wax badan baa qabyo ah wada jir ahaan waxaan u baahannahay in aan wax wada qabsanno bulshadana wax ku soo kordhino mustaqbalka dhow xitaa diyaarinta daawooyin cirib tiraya fayraska inaan abuurno ayaa laynooga baahan yahay kuwan maantana horumarin ku samayno wada noolaanshaha bulshada inaan ka shaqayno ayaa ina sugaysa hawlo badan baa inoo yaala ugu horreyn waa in aan garanno in layna sugayo ilaah idinkiina wax badan inaan inoo qabto ayaan rajaynayaa haddii aad ii igmataan sidaas ayay khudbadahaygii ku soo dhammaadeen goobtiina loogu kala dareeray subaxnimadii salaasada ayaa la gaadhay doorashadiina waqti badanba may qaadan xubno madax bannaan oo maamulka doorashada gacanta ku hayaya ayaa waqtiga ku dhawaaqista shaaciyey shir ballaadhan oo mar labaad la soo agaasimayna waxaa laga shaaciyey qofka ku guulaystay hogaaminta sanadka soo socda aniga ayuu noqday qofkiina sawaxanka meeshu cirkaasoo maray asxaabteediina duco iyo hambalyo badan ayaan kala kulmay xilkii ayaan kala wareegay aadam sidii ayaanan ku ahaa gudoomiyaha ururka hawlo kuwaygii ka culusna iila soo gudboonaadeen bilo ayaa ka soo wareegay intaan xilka hayay waxaan ka dhaxeeyay dhigashada cilmiga iyo safarro kooban oo aan ku bixi jiray aniga iyo xubnahaygu si joogtaha waxaan u hawlgalaba fasax kooban ayaan qaatay xaruntaydiina nasasho ku joogay galab rooban ayaa aniga iyo bushaaro oo dhex lugaynayna beerta weyn ee aan wax badan ka durugsanayn meesha aan degannahay isku soo baxnay mahdi bariido kooban kadib lugtii ayaan isku darsannay kaftan koobanna isweydaarsanay isla markiiba saaxiibaday ayaa degdeg bilowday ishaartayna in ay wax soo ilowday oo dib u noqonayso way isu kaayadaysay socodkiina waan sii wadanay muddo haddaan isdhinac lugaynay oo kala aamusnayn ayuu cod xabeebsaday mahdi ayuu dhow teer ku celiyey dabadeedna yidhi arrin baa jira aan ku keliyaystay muddana keligay rogrogayay ma jirin waqti ku habboon oo aynu kulanno muddada aynu isnaqaanay aan ka ahayn intaan xiisadda idinku jiro waan ku farxay galabta markaan arkay jawiga cudoon adigoo dhex qaadaya jawigan aad si walba isugu eegtihiin aaraarta badan haddaan laba eray ku soo koobo inan yahay kalgacal baad goortaan ku eegaba qalbigayga gelisaa ayaamahaba dhankaaga ayaa lay jiidanayaa dabciga kartida dhiiranaanta iyo aqoonta ballaadhaniba waxay ii horseedeen ka fekerkaaga iyo hamuun badan oo aan agjooggaaga u qabo waan ku jeclahay ayuu ku soo afmeeray intaas kadib maxaa dhacay la soco daawade qaybta inoo xigta qaybteenan maanta sheekadeenna waxaa qoray qora Cabdillaahi Saala Ahmed annagoo bahda dhigalahayna waan idinla wadaagnay